guddi ka kooban beelaha harti ee Degasool iyo Sanaag-bari oo sheegay inay isu xilqaameen in la mideeyo labada urur siyaasadeed ee Waabari iyo ururka shacabka ee ay kala gudoomiyaan gudoomiye Xagle Toosiye oo ah ururka shacabka iyo gudoomiye Ataash oo isna ururka Waabari ayaa guddigani waxay sheegeen inay ka howlgaleen sidii loo mideyn lahaa labadaasi urur. haddaba guddigan oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Hargeysa ayaa waxay sheegeen in gudoomiye Ataash uu arrintaasi ka biyadiiday, waxaana guddidu tilmaameen in xuduudda beesha ay ku taageeri doonaan ururka shacabka oo uu gudoomiye ka yahay gudoomiye Xagle Toosiye. waxaan u mahadcelinayaa guddidii beesha harti ee isxilqaantay ee haddeer ragna la fadhiyaan ragna ka maqan yihiin sida Baasha Cali Jaamac, Cabdilaahi Maxamed Suldaan Maxamed Cali Shire, maxamed Cabdilaahi Bootaan, Cabdiraabi oo iyana ku maqan Ingiriiska. aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa raggaasi muddadii faraha badnayd ee ay u dulqaateen in ay qodax tiraan, inay xaawilaan sidii ay u midayn lahaayeen beesha harti. sida lala socdana habbeeleedkii berigii hore wax lagu qaybsan jiray ee habkii beelaha wati laga gudbay oo hab dimuqraadiyada loo gudbay. dimuqraadiyadaas waxaad moodaa in ay xuquuqdii harti lahaa dhinac ay lumisay. sababta waxa weeye habkan dimuqraadiyadda xisbiyada badan ee loo gudbay ayaan dadkayga aan aad uga degin oo aanay magaranaysaa in badan fahmin. nasiib wanaag waxaa soo baxay laba urur oo beesha harti ah oo arrintaas markii ay arkeen ama daraasad ku sameeyeen guuldarrooyin badan oo istaba jooga oo beesha harti ka soo gaadhay xisbi la'aantii ay laba xisbi samaysmeen. labada urur oo doonaya inay xisbiga u gudbaan waxaa noo muuqatay haddeer dhabbada ay hayaan inay tahay dhabbadii guuldarrada, inay tahay dhabbadii midnimo la'aanta, inay tahay dhabbadii aan horumar lagu gaadheen. beesha harti halkan shirar badan bay isugu timi oo istaba jooga, waxaana go'aan ku gaadhay in ay xaawisho sidii ay u midayn lahaayeen labada urur ee samaysmay si xoogooda, xoolahooda iyo xiniyahoodaba u midoobaan, si ay ugu suurto gasho inay yeeshaan xisbi platform ah oo ay mustaqbalkooda iyo aayahoodaba iyo masiirkooda matala. taas waxaa noo suurto gashay guddidii harti ee la qabtay inay u yeedhaan labadii urur guddoomiye oo ahaa ururka Waaberi oo hoggaanka ahaa ninka la yiraahdo Ataash iyo ninka la yiraahdo ururka la yiraahdo SBB ama ururka madasha bulshada Somaliland oo uu hogaaminayo Salebaan Xagle Toosiye. waxaan markaa u yeernay labadii qolo, labadii dhinacba waan u yeernay, waxaanu ka qaadnay kalsooni, waxayna siiyeen kalsooni buuxda. xaqiiqdii waxay nagu qaadatay 2 bilood inaanu raadino habka ugu habboon ay midnimo ku heliyeen. bugaag badan baanu baadhnay, diiwaano badan baanu baadhnay, ilaa xisbul baxas xisbul rafad baanu soo saarnay. waxaa nagu qaadatay in ay midnimadoodu ay tahay muhiim oo sida keliya aanu ku heli karno xisbi maanta qarannimada Somaliland ee dalcadda tirada saaran waxaanu si ragga ka bixin karaa maanta waa beesha harti oo xagga kalena beesha dhexan ay ka soo dhamaatay habartii iyo magaranaysaa iyo Somaliland markayga. taas anagoo ka duulayna waxaanu yeelnay inaanu nimankii isu keenno, inaanu nimankii aanu go'aan soo saarno, aanu go'aankaas waxa weeye waxaad ku tihiin midnimada, waxaad ku tihiin wada ahaanshaha, waxaad ku tihiin in ummadna wax kaga helaynaa waxa weeye inagoo mida oo urur kaliya wada samaysana oo baalaha iska taagna oo aynu ka ummadana wax kaga doonano, beesheenina ku registrationkeena ku sameeyno, halkaan ay Somaliland wax kaga qaybsano. waxaanu aaminsanahay tafaraaruqa iyo dib u dhaca iyo isbarbaryaacu inuu yahay dhabbada guuldarrada. anigu xildhibaan baan soo sharaxay, waan aqaanaa waxa ay guuldarradu tahay iyo waxa ay barbaryaacu iyo sababta madaxa u yeelanaya isbarbaryaacu. taas anagoo ka duulayna waxaanu taageeraynay inaanu nimanka midayno. nasiib wanaag ama nasiib darro dhinacan ka iraadaya nimankii markaan u yeedhnay
nin waana yeelay wuxuuna yidhi wixii mar haddaan idiin dhiibtay gartii markii hore iyo haddaba kalsoonidiina aan idin siiyey haddana waxaad tirahdaan diyaar baan u nahay nasiib daro dhinaca kane dhinacii ninkaana yeelay waa Saleebaan iyo ururkiisa SBB ninka arrintaa ku margaday ee arrintaa muddo ay nagu qaadatay inaanu qadcadno waa ninka la yiraahdo Cabdirasaaq Cataash bulshadu waa laga yaabaa inay yiraahdaan war waxaan muddaad ku jirteene waxa la yiri gudi raagtay ama waxba dhiban ama waxba dheeraada nimanka maamaada sameeyay waxa ku dari lahaayeen ama ila meeraysaa jirta ila meeraysadu waa nagu badnayd aakhirkiisa waxaan soo gaarnay go'aanka waxaan u aragnaa inay taasi tahay tii aanu ku shaqaynayna inay ahayd annagoo si cadaalada arrintan uga yani u wadnay iyadoo aan cidinina diran annagoo voluntary ku shaqaynaynay waxaanu hawshaasaanu muddada hawshaasaanu wadnay hawshaasna halkaasaanu dhignay nasiib darro sidaan u aragnaa waa noo muuqataa dee ninkaa kalsoonidana siiyey go'aanka iyagana aqbalay inuu maanta noqonayo xisbiga harti ee aanu muruq iyo maal iyo maskaxba aanu nala siin doono oonu la shaqayn doono because yani de ninka kane waxa weeye dee isaga cirka roobka og baan leeyahay waxaana laga yaabaa way dhici kartaa dhaqana baa jira in khayr qabalyaal la soo dhaqdhaqaajiyo hadhow oo la yiraahdo nimankaas waxay sheegayeen waxba kama jiraan waxaan leenahay war 2 bilood bay noogu qaadatay aanu dhinac walba ka soo rognay geed walba oo ka soo rognay khayr qabayaal waxa weeye de hadhow haddii taasi dhici doonto war annaga 2 bilood bay noogu qaadatay maantana uma diidanin khayr qaba ka soo imanaya midnimadii wax ku jiraan midaynaya dadka waxa weeye midaan waasac marka intaan oranaya waxa weeye waa inta waxaan leeyahay waxa weeye xisbigaanu la shaqaynayno xisbigaanu garab taaganahay waa xisbiga taladeeda yeelay waa xisbiga go'aankuna siiyey aanu maanta aanu garabkiisa aanu taaganahay waa xisbigaas weeye gabadheena waxaan leeyahay war aabbuhu waa yaqaanaa ninkuu geela u dirsanayo aabbuhuna waa yaqaanaa ya barqabku geela u dirsanayo intaasaan kusoo gabagabaynaya asalaamu calaykum halkan shirka jaraa'id maanta waxaan u qabanay guddidii hawsha labada urur ku dhex jirtay baanu ahayn marka halka waxaan maanta shirka jaraa'id u qabanay inaanu wixii ummaddu naga sugaysay aanu ku dhawaaqno gartiina inay dhammaatay labadii ururna ninna dee uuna diiday oo yidhi gartiina kuba kalsoonintu markii hore kalsoonina siiyey ya ninna uu markii horena kalsoonina siiyey markii dambena judgmentiga yeedhinana uu qaatay judgmentigayga iyo garti inta ay ku dhan tahayna waa intaa ururka SBB xagla wuuna yeelay judgmentigayga wuuna qaatay waxaan halkan day ka dhigaraynaa ya inuu labadii urur ay saa kale yihiin gartiina ninkaasu diiday ninkanina qaatay judgmentigii uu saa u dhammaaday wabilaahi tawfiiq wasalaamu calaykum shaafici shaaciye bulsha TV hargeysa ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in 3 jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed سلام عليكم السلام عليكم waxaanu jecelnahay wada jirkeena qoys ahaaneed ha u ogolaanay internet daciifa waqtigeena fiican idinkaga ciyaaro dalba internetka fiberka oo ah mid xawaaro badan isku halayn leh madadaalo badan garaac 818 si aad noogu xidhnaato hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana waa kuu bilaash haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 eber 8 afargees ama xidig 2 eber 2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyga Soomaaliland